kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena su'aalaha oo aalaabad nagala socotaan Maati TV daawadayaal barnaamijku waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Axmed Joon daawasho wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka adigoo ku magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Khalid Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Khalid Cabdi Qorte Khalid oo ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku weydiinayaa su'aashaas waxay noqonaysaa haddii qofka adduunka ugu jeceshahay saaxiibka rumi uu ka qaado maxaad fariinay u reebi lahayd waxaan fariinaa u reebi lahaa horta waa saaxiibka iyo saaxiibtinimadu waa qaali laakiin waa uga tanaasuli waxaan leeyahay waxyaabahaas oo kale dib ugu dhaqmi mid ku dilaya soo bixi karaa waxaad leedahay kuwa kale iska ilaali waayo kuwa kale saaxiibtinimo meegaya aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Aadan Dibad Cabdi aadan su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa saddexda geed aanu geelo cunugu iyo jilaalba saddexda geed haddaan isku dayo waa godolka ciinka iyo kiriiriga aad baad mahadsantahay iyo godolka kiriiriga iyo mid baad garatay aad baad mahadsantahay waay ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabay walaalo waan ku dhawahay magacaygu waa Naciim Cabdullaahi Naciimay su'aal baan ku weydiinayaa haddaad inankada adduunka ugu jeclayd saaxiibada rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa waan dili lahaa saaxiibada ruma aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabay anigoo malaal magacayga ku bilaabaya waxaa la yidhaha Maxamed Cabdi Cali Haarun su'aashan ka jawaabaya sheeg maxamed waxaan ku weydiinayaa su'aashaas waxay noqonaysaa haddii saaxiibka rumiyaati uu qofka adduunka ugu jeclayd ka qaado maxaad fariin u reebi lahayd waan hambalyeyn lahaa saaxiibkeen adduunka ugu jecelahay haddii waxaan jeclaanay iga qaato waan hambalyeyn lahaa fariin maxaad u reebi lahayd oo digniina dib ay ku soo noqon baan la taana qaado kuwa kalena ku soo noqon ku soo dhawo barnaamijka adoo ku bilaabay magacaaga waan ku dhawahay walaa magacaygu waa Shacay Cabdiraxmaan Yuusuf Yaas Shacay su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay noqonaysaa saaxiibka rumi hadduu ka qaado gabadha adduunka ugu jeclayd maxaad fariin u reebi lahayd hadduu iga qaadaba ninka maanta jacaylka iga qaaday berrina muxuu ila hadhi lahaa marka maxaad fariin u reebi lahayd qaadaybe waxaan fariin u reebi lahaa waa caadi wax waa dunyo maalinba qof baa la bartaa markaa waan baran lahaa wax kale aan ku idhaahdaa ma jirtaa meesha waad ku bogaadin lahayd aad baad mahadsantahay waayo jiirhkaygii kalaa ku faraxsantahay aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka magacaaga ku bilaabaya bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Cali Xamdullaahi layaha waxaan soo dhaweynayaa howlwadeennada TV-ga iyo saxaafadaba aad baad mahadsantahay su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa saddexda geed aanu geelo cunugu iyo jilaalba haddaan isku dayo saddexda geed aan geelo cunin geedka la yaho dharkaynka xaangeeyada iyo geedka godorka la yaho labaad garatay aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya wandhawe walaashay magacayga waxa la dhahaa hibaaq su'aal baan ku weydiinayaa haddii ninka adduunka ugu jeclay saaxiibada rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa kaas isagana jeclayn maxaan ku lahaa hore ka soco isaga baan jeclayn haddii way jeclay saaxiibadayga mu raacay waan ka tagi lahaa anigu mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabaya waan ku dhawahay waxa la yiraahdaa Fadhi Mataa Abdullah Fadhi su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay odhanaysaa gabadha adduunka ugu jeceshay haddii saaxiibka rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa iyada mise isaga waxaan u reebi lahaa waxaan odhan lahayn anna maalin labadiina midkeenba gelin ha qabo gabadha aad baad u mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha waxaan ku weydiinayaa hal su'aal magacaaga horsa magacayga waxa la Axmed Maxamed Ibrahim Axmed waxaan ku weydiinayaa su'aal haddii saaxiibada qofka adduunka ugu jeceshay saaxiibka rumi ka qaado maxaad fariin u reebi lahayd saaxiibka rumiyaati hadduu ka qaado adduunka qofka ugu jeclayd ma garay ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha magacaaga ku bilaabaya deeqa yimaan maxamuud deeqay waxaan ku weydiinayaa su'aal waxaad sheegtaa saddexda geed aanu geelo cunugu iyo jilaalba anaa noo haynaya kan saddexda geed aanu geelo cunin gu iyo jilaal hodayga kowdhe xangeeyada laba dheh xagarka saddex dheh labaad garatay aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijkooda magacaaga ku bilaabaya waan ku dhawahay walaal magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Salmaan Jaamac Bashiir gaada laygu waliba Bashiir su'aal baan ku weydiinayaa haddaad gabadha adduunka ugu jeclayd saaxiibka rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa wallaahi kulay saaxiibadu way soo warhayaane
waan haniyeyn lahaa ama waxaan samayn lahaa haddii aan u haniyeyn waayo waaba saaxiibkee dee saaxiibadii ama jacaylkiisa uu yaqaano ayaan kaga aarsan lahaaba dee aad baad mahadsanta kusoo dhawo barnaamijka su'aalaha adoo magacaaga ku bilaabaya walaal magacaygu waan dhowey cismaan cabdilaahi cabdi cismaan su'aal baan ku weydiinayaa su-aasha waxay odhanaysaa haddii saaxiibka rumi aad tihiin oo gabadhaad jeclayd kaa qaado maxaad fariin u reebi lahayd midaan jeclay anigu gabadhaad adduunka uga jeclayd saaxiibka rumi hadduu kaa qaado maxaad fariin u reebaysaa calool xumaan u hayn lahaa maxaad fariin aad u reebi lahayd isaga maxaan odhan lahay saaxiibtinimo ahaan maxaad fariin u reebi lahayd ama digniin waan dili lahaa waan ka daba tegi lahaa aad baad mahadsantay kusoo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cumar jaacno cali aad baan ugu faraxsanay magaalada burxasaaka inkastoo su-aal ay ku bilaabeen gobolka togdha wax leedahay noolaado aad baad mahadsan tahay su-aal baan ku weydiinayaa cumar soma cumar su-aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa saddexda geed ee inuu geelu cunugu iyo jiilaalba bismillah horta haddaan isku dayo geeda inkastoo isla geelleedan ood ku fiican tahay waxaa weeyaan saddexda geed ee aanu geelu cunugul iyo jiilaalba soo maaha mid waa tiinka ciinka allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaanu cunin goobka malaa geedka goobka la yidhaahdo ta kale haddaan isku daro waxaa weeyaan waa geedka la yidhaahdo berdaha aad baad mahadsan tahay maad garanin su-aal kalaan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa haddii gabadhaad adduunka ugu jeceshay saaxiibka rumi kaa qaado maxaad fariina u reebaysaa bismillaah gabadhaad adduunka ugu jeceshay haddaad saaxiibka rumi kaa qaado dee horta waxaan leeyahay markaa qadarka ilaahay ku kalsoonaada wixii dhacay way dhacay waxaan odhan lahaa uun sidaan u dhaqi lahaa u dhaq umaan u reebi lahaa anugu aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay gobolka kusoo dhawo barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waa Naciima magacayga waa Naciima Naciima su'aal baan ku weydiinayaa haddii inanka adduunka ugu jeclay saaxiibadaha kaa qaado maxaad fariin u reebaysaa waxaan u reebayaa horta anigu ma jecli inuu wiilku qof kale igala sheekaysto haddaabay dhacdaba hadda adduunkaad ugu jeclayd saaxiibadaana adduunkaad ugu jeceshaa maxaad fariina saaxiibada u reebaysaa أنا هرت ويلك ما عرفت قولي سوالف ما يلها والله أنا وديسن لهاي صاحبتي وديسن لها لكن أصدق لكن ككلنا وكان قاعد أسوي هذا ما سنت لكن أصدق ما عرفت أنا ودا ما يلها أو قبل ودي دم يلا وديسن لهاي أيضا وديسن لكن سكدمنا يدنا خدمنا قبل ما سنت كسر برنامجك هذا مقعد بلاوي مقعد ولا حلا خضر حسين أحمد أحكم مقعد داير دعر aad baan ugu faraxsanahay inaad ila kartay barnaamijka aad baad mahadsantahay taageerayo kala socday tilmaan khadar samaha khadar waxaan ku weydiinayaa su'aashaas waxay odhanaysaa haddaad inanta adduunka ugu jeclayd saaxiibka rumi kaa qaado maxaad fariin u reebaysaa te waxaas wax ragba ka dhaxaya ma hadde ma saaxiib haddaabay dhacdaba maxaad fariin u reebaysaa saaxiibka de waan taaniyada lahaa saaxiibada iga guulaystay mahadsanid baa odhanayaa aad baad mahadsantahay اوكي كسر دو برنامج كسؤال هذا مقعد كبلان دو ولا سلمان سعيد بري وي مقعد ولا سلمان سؤال بنك دينيا سؤال شو حرنسا هدي قبل أدونك وجه على صاحب كرومي كقاعد حد فرينا وريبس صاحب كاد وجه على هدي وكقاعد حد فرين ريبلين هي نصيب كيس ده هدي وكقول استوى صاحب كي وروم طي وكقاعد ده هو سمير يمين محا كلاك كسر دو برنامج كسؤالها هذا مقعد كبلاوي مقعد وحوي حسن قبوت إسماعيل حسن أو سؤال بنك ويدينا يا سؤال شو حرنسا صدح دقيت إنه قيل عنقو يتشيلال بشر صدح دقيت إنه قيل عنقو يتشيلال به صدح دقيت أنا عنقو يتشيلال عين ككوده قيت كليراهو كلا عين ككوده وحانو عنو كلا حقيقة سلام waxaanu cunin aan baskaxaga baadhayso xasuusta ila wakadiisii adoo waqtigana ku dhaqsanay laba mar yeesu ka saddex geede waxaanu cunina kale geede marka geedhaan la soo qaaday meegaa gaban cuno geelo marka saas kuugu dhan yahay aad baad mahadsantahay kusoo dhawo barnaamijka su'aalaha magacaaga ku bilaabaya waan dhaway walaalo magacaygu waa maxamuud maxamed gaabuush maxamuud su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay odhanaysaa haddii gabadhaad adduunka ugu jeclayd saaxiibkaa rumi kaa qaado maxaad fariin u reebaysaa waxaan u reebayaa horta waan ku farxi lahaa waxaanan ugu farxi lahaa mar haddaanu meel kale qabanoo dee saaxiibkay guursado saaxiibkay waxa weeye waa walaalkaygu marka aad iyo aad baan ugu farxi lahaa waana soo dhaweyn lahaa digniina ma siinaysa
maya fariin waxaan u reebi lahaa waxaan odhan lahaa inantaa waa inaan jeclaa xanaane si fiican u hay haddii alla ka si wacan u ilaali aad baad mahadsantahay aad iyo aad kaa qaada aan ku soo dhawo barnaamijkaada magaca ku bilaabay bismillaah waxay magacayga leeyahay Saadi Saciid Cabdi Saadi su'aal baan ku weydiinayaa haddii qofka adduunka ugu jeclayd saaxiibada rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa qofkii aad adduunka ugu jeclayd haddii saaxiibada rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa saaxiibada u reebaysaa saaxiibadayda xaqa maxaad fariin u reebaysaa waxaan fariin u reebayaa waxaan u hambaleynayaa de marka ugu horeysa wax fariin oo ma reebsan waan u hambaleynayaa marka hore marka xigtana waxaan leeyahay saaxiibadayda xaqa runta xaqa Allah kugu sugo aamiin hay mahasanta ku soo dhawo barnaamijkooda magaca ku bilaabay Mustafa Maxamed Sidona Mustafa su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa saddexda geed aanu geelo culin gu iyo jilaal saddexda geed aanu geelo culin gu iyo jilaal waxa weeye xayaab iyo garawaaga iyo ma garanayta kale walaa aad baad mahadsantahay maad garanay dadkii geelo ma yahay anigu arkay waan ku bedelayaa haddii gabadhaada adduunka ugu jeceshahay saaxiibkaa kaa qaado maxaad fariin u reebaysaa dee waan u hambalyeynaya wax digniina ma siinaysid aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijkaada magacaa ku bilaabay kayso booralaga kayso su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa saddexda geed ee aanu geelo cunin gu iyo jilaalba saddexda geed aan geelo cunin gu iyo jilaalba waxa weeye dhilowyahanka horta mid waxa weeye ma cuno miyaa kaa ma cuno waad hubtaa hay labada kale waxa weeye dixida hay waxa weeye geedka la yidhaha bardaha aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha magacaa ku bilaabaya waan aad baan ugu dhawahay magacaygu Sakariye Sakariye su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay odhanaysaa haddii saaxiibada rumiya aad saaxiibka rumi ka qaado maxaad fariin u reebaysaa saaxiibada ruma qofka inantaad adduunka ugu jeclayd waska saaxiibada saaxiibka rumi ka qaado maxaad fariin halkan ugu reebaysaa waxa ugu reebaysaa inuu intaas noo ilaaliyo ku ilaaliyo wax digniina ma siinaysid wax kale ma siinay aad baad mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha magacaa ku bilaabay ku soo dhawo Suldaan Maxamed Cabdullaahi Suldaan Maxamed Cabdullaahi suldaanka waxaan ku weydiinaynaa su'aashaas waxay odhanaysaa waxaad sheegtaa saddexda geed ee aanu geelu cunin gu iyo jilaalba waay saddexdaa geed waxa weeye gowracatada kow dhosqana laba iyo dhosq iyo geedkii kale waqtigana ku dhaqsanay waxa gowracatada iyo waan kuu sheegay dhosqa soo maha ya ta saddexaadna waxa weeyaan geedka saddexaad waxa weeyaan waa ciinka aad baad mahadsantahay maad garan ku soo dhawo barnaamijkaada magacaa ku bilaabaya jaamac axmed dhuxul jaamac waxaad sheegtaa saddexda geed aanu geelu cunin gu iyo jilaalba saddexda geed waxaa ka mid ah ciinka dharkaynka iyo xangeeyada aad baad mahadsantahay adna waad mahadsantahay waad mudanta daawadayaal waxaa ku soo gabagaboobay bartaa barnaamijkeennii su'aalaha haddana waxaan ka jawaabi doonaa su'aasheennii barnaamijka oo ahayd saddexda geed aanu geelu cunin gu iyo jilaalba waa dharkaynka xodayga iyo xangeeyada daawadayaal barnaamijka waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah Axmed John halkaad nagala socotaan waa YouTube channelka Maasi TV sidaa iyo amaana Allah